halka yar jooji codka ka yar xidhe meesha ku muuqanaysa ee jawiga degan lagu jiro ee rag iyo dumar kala dhex fadhiyo halkana qoryihii la dhigtay ee lagu barjeynayo magaalada Laascaanood raggaas jawiga degan ku jira ee heesaa qaaciga ay u baxayaanna waa raggii layna ku wareeriyay ee laha waxbay xoreynayaan ee Puntland ka soo ruqaansanayay su'aasha la isweydiinaya waxay tahay nimanku miyay soo qayla tageen miyay soo shaqo tageen inta soo kaliya maaha haddii deegaanada Soomaalida aad ku taqaan in khamrigu madnuuc yahay oo dad islaam aynu nahay Laascaanood khamrigu wuxuu noqday tabta jaadka ama qaadka loogu kala iibsado deegaanada kale qaabkaas oo kale ayaa loo kala iibsanayaa ceebba ma ahaba waa la soo kala iibsanayaa waa la kala tirsanayaa waa la isku hor cabaya wadooyinka la marayaa mararka qaar waxaad arkaysaa qaar kamid ah huwantii oo intay soo cabeen la soo galaya ila taawanikan ويركادي حوغا هيسا ayuu dhageysanaya wuu caytamaya waana bir Ramadaan laakiin sanikaasi khadka ayuu ka baxsan yahay waana wax iska caadiya magaalada Laascaanood ee dhaqanka iyo diinta lagu yaqaanay xasiloonida maanta khamriga ayaa lagu kala ganacsanaya waxa sameynayeen waa nimankii wanta sheeganayay waliba ciidankii DSF-ta ayaa bahalka iibinaya ma aha waxaan ka sameynayo cid kale iska daaya dhulbahantii deegaanka u dhashay ee sharafta iyo milgaalaha ayaa arinta dhibsaday oo mar iyo lababa hadal hayaba war cid kale iska daa iminka gabadha yar Soomaartid iyadoo wadada maraysa microphone loo dhiibay isaaq ka war Soomaaliland ka war say arinta uga hadlayso ayay xagga tan waxay kaga soo daraysaa ciidankeenina waa inay khamriga iska daayeen way la yaabsantay la dhigayso ciidankeena waxa uu sheegaynaa in dalkooda xoreystaan ay dalkooda u shaqeystaan ay khamrigan iyo waxan iska badaayaan ba iska xiraan gabadha yari sidii Soomaaliland u maageysay ama saaq iyo Samaroon iyo Ciise u maageysay ayay waxay ku soo dartay dhibaatada huwantu ay ku hayaan Laascaanood iyo khamriga lagu kala iibsanayo Laascaanood khamrigii tabti bariiska iyo baastada iyo hilibka cuntada caadiga ahayd ee aan laga xishoon jirin ayaa loo kala iibsanaya waxaad isweydiinaysaa khamriga meesha yaa keena waa wax iska cadaana ciidanka DSF ayaa keena waa ciidankii boosaaso ka soo gurmaday eelha ma jeerteen ayaanu nahay ee uu soo diray ninka meegaabta marsada ee magaranaysa koonfurada caan bukay ninkan waa wax iska cadaana cid kale iska daa bal iyaga dhageyso ma jeerteen ka dhageyso way ku sheegayaan oo xilli ninkaas meesha khamriga ku iibinaysa waa nooc ma haddaba waxaan aad ula yaabay oo wallahi maskaxdeeda gali weeyday ninkan waa ninka kaliya ee maanta ay doonayaan inay dalay ku bedelaan ee ay doonayaan inuu noqdo madaxweynaha maamul goboleedka Baryaa waaweyn la Puntland had iyo jeerna waynu naqaanaa qofka la dooranayo waxa lagu doortaa dhaqan diin iyo iimaan iyo mas'uuliyad iyo amaano ilaahay baan ku dhaarshay ninka khamri iibinaya ee waliba caan kaga ah Puntland dadka taageersan talo dhaqankooda nooc ma mid kalena waliba kugu daro doorashadii hore ee Puntland waxa ugu taageero badnaa labada nin wadanay iyo Diyaano ninka khamriga iibiya ayaa in yar kaga sare qaaday inuu dani ka guuleysto maantana waabay go'aan waxay ku gaareen inay ka doortaan وعام بكيه بوصاصي سيغا خمر geeya imka Laascaanood buu soo wareejiyay waa ninkii la hawada uu soo gurmadeen ma soo gurmadeen Ethiopia ka keenal Laascaanood buu soo galiya intaas oo dhan ka faa'iideysan dagaaladii maganaysa meesha bila maamulka wala ka shaqaysanaya waynu iska naqaana nin khamri cabaya hab dhaqankiisa iyo qaabka uu dhaqmo cidna inaanu dhaaf macal hooyadii uu ku kufsanaya qof dhaq khamri caba akhlaaq iyo diin meel uu soo marayba ما جنيس أنا وحلا يا بني بدلان نكري تاجسين إنا بدلان أنا تقل لهين ودين لهين حاجة كشيدان قاضو نكاس أيام مدحوني ما ترتمية بلا سؤال كودي نك الدنيا إنه مدحوني ما ترتمو إلا وضعي هاي إنه خبر عبو خبر يبيو محيط هاي تذكر ماشي شو قبل ما تضير ولا بعض من الشروط لهين نكاس الصوش راح يو وين ماندوريا كمرا مدح بنان تهي وين الحبس وليغا سو مرين وين التوغ هين وين الامن تهي شرطي ان المشرح نقطه وين الشروط كهريسا
iyagoo la iska wada ogyahay ninkii khamriga iibiyo ayaa loo ogolaaday habdhaqanka ma jeerteen halka ka shidaal qaado haddaba waxa la yaab mudan nimanka ma jeerteen ee madaxweynenimada Puntland la doonaya ninka khamriga iibiya ayaa bulshada kale Soomaaliyeed sida Somaliland hawiye iyo beelaha Tigyo Midifle ama Dirbaan idhaahdee ayaa waxay ku caayayaan dhaqan xumo hadda waa nimanka leh haliye qaran weeye ninka sarxaanka khamriga iibiya ya midda kale waxaan arki jiray nin khamriga iibiyo la takooro oo tuko baalmado laga dhigo weligay nin la leeyahay la amaanayo khamriga iibiyo waliya maarag ya wallahi Oscar ka sidii kunii xulay Puntland wanaga cilmi badantii walaalayaal wanaga cilmi badantii wanaga inta adagtii wanaga geesantii ya wallahi wanaga geesantii war wax kale iska daa hablihii dhul bahantay ilaa sacano iska soo jeeday ayay aad ugu caareysan nimankan intii khamriga cabaan hablaha dhul bahantay kufsanaya habeenkii gabar ayaa waxay tiri xubintada taranka dhiigaaga ku bedelan maayo saaxib يا ما يقطع Soomaaliye inaan dhiigaygu ku bedesho siilkay wallahi okay inaha iga jeeda mid faanti waxay ku leedahay jirkayga hablaha dhulbaanta jirkooda inaad noo hiliso dhiigaaga noo shubto kuma bedelanadi dhiig wamiga shubayaba inta garaw laga soo dhaaqay la saana iska dhex fadhiisto waad gartay Soomaa mid kalena waxa ku oranayaa beelaha sharafta badan ee magacan calanka naga dhaxeeya ee dhulbaante markan habdhaqanka ma jeerteen iyo idinku saa u dhaqmaysaan aan arkay waxaan soo xasuustay riwaayadii xishood iyo jacayl ayaa waxa kamid ahaa gabadh baa geeygo barwaaqo ah intay ka hayaantay meel aan geedaba ku oolin geeda ka doontay dumarkii baa garan waayay wiil almacno imika waxaan uga jeedaa reer tolka dhulbaanta la kaftamayaa idinkoo nala wanaagsan ku nool oo jaamacadaha ugu qaalisay Soomaaliland laydii dhisay oo hospitaal laydii dhisay oo amni iyo xisoonooni haysta oo hablaha sharafta badan ee dhulbaanta la saaray ay amni ku nool yihiin ayaa nolol wanaagsan waxa ka raadiseen dadkan doonaya inay madaxweynenimo u doortaan ninkan khamriga iibinaya waxa nolol ka raadiseen dadka kufsanaya hablaha yar ee 9 jirka ee Caasha Ilyas Ilaahay u naxariistay qabri dhigay waxa nolol ka raadiseen dadka inta la sacad inagu yimaadeen hablihii ni kufsanaya ee dhaqan xumada la soo aaday ee ni soo dalxiistiga baawe meeshii ma joogade baawe ya war bal dib isugu noqda oo aqligiina tuujiya war bal tashada oo bal aayihiin iyo wanaagiina ka tashada oo waxaad wax ku bedelaysaan waa in ay ahaadaan wixii hore ka wanaagsan mid kalena waa kugu daraya dhulbahantow ninka kabahaaga aad ka tolanaysa maarta waa inaad kabihiisa eegtaa ninka aad wii hiilinaya ee garawo gaalkacayo iyo boosaasiyo qadha ka yimi barida weynle waa inaad eegtaa nolosha isagu ku nool yahay deegaanadiisi kala badh waxa haysta argagixisada Daacish oo baadsa uga guranaya hilku adiga ku hiilinayo mu naftiisa ku badbaadsado oo nimanka argagixisada iska badbaadiyo toddobaadkan wallahi billahi warbaahinta ka daawo shirkadihii boosaaso ayay baad weydiinayeen qoladii Daacish ka helaan nasiib khasab waa ku ilaha sidoo kalena waxay toddobaadkan qabsadeen deegaan kamida deegaanka isku shuban oo ka tirsan gobolka bari ee Boosaaso inta deegaanka qabsadeen ay calankoodii ka taagteen Daacish nin kale laascaanood baan xoreynaya oo hiil harti halka ku yimiyo deegaankaaga maxaad xoreysan weyd riyahaday dib loo yihiin dabadooda ayay ku qoran lahaayeen ya haddaad doonaysa inaad Soomaaliland iska celiso ya ilaa ka soo bilow og ka soo bilow baan ku leeyahay galbeedka solo dhan ayaa ka soo bilaabay xagan kugu keenay Boocame inta iska meed ka celi haddaad se wax cid u hiilinayso nafteeda u hiili oo Daacish iska saar dhulbahantow nimankani dayacan ee silcisan ee dhaqan xumada inala soo dadto inaga saareen magareeyay deegaanka gobolka Solo weyn wada degnaa anigu nin habar jeclaa baan ahay nin Muuse Shaxi Saxaaqa baan ahay waxaan nin Abubakar Jibriil baan ahay nin Muuse Abubakar baan ahay nin Abdiraxmaan Muuse baan ahay nin Yoonis Abdiraxmaan baan ahay nin Cismaan Yoonis baan ahay nin Maxamed Cismaan baan ahay nin Wacays Maxamed baan ahay nin Caafi Baalla baan ahay gobol Caynaba ayaa degaa oo degmada marka laascaanood laga tago degmada labaad ee ugu dadka badan leh waa Caynabo aniga ayaa degaa ana xaq rubaabi wala maganays gobolka Solo way wada leenahay shaytaanka iska naar oo dadka khamriga cabay inaga saara may garateen ya Soomaaliland waxa leeyahay
dadka iyo dadka hal la badbaadiyo dadka dhaqanka xulana sida xabad loogu wado ilma diyaano way meesha laga saaraa mid kalena waa kugu daraya oo waliba waxaan ugu quus goynayaa dadka doonaya laasacad inay qabsadaan ama wax doonayaan garanaysa mid baan ku su'aalayaa Muuse Bixi markuu u soo diray gooja cadda wiilkiisa uu jeclaa ee dhiigiisa iyo dhicaankiisa ahaa maxaad ka fahamtay taamcineed waxa weeyaan wiilkayga naftiisa waa waayi karaa laakiin laasacad ma waayi karo هم